marka hore waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay ina abuurtay inagu soo suurtageliyeen maanta iskugu nimaana xalfadan aadka u quruxda badan leh marka labaad waxaan u mahadnaqayaa macallimiintayda iyo maamulaha dugsiga waxaan kala halkan ka salaamayaa ardaydayda marka labaad waxaan u mahadnaqayaa martida sharafta kala duwan ee iskugu timi xalfadan ay ka mid yihiin madaxda wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka aad baan u salaamayaa bismillaah waxaan bilaabayaa gabay arageygii nolosha wayan loo iftiino waayahayga dunida abid hayga dheeraan intan duni ku noolahay ku ilaawi maayo iftiin ii baxaayo arageygii baa tahay aqoontii naftaydii iyo aayahaygii baa tahay udigii baxaayo iftiinkii adduunka wardayahay adaabtiyo akhlaaq lagu dhameeyey qata ereyadayda oo abidkiina sii dayn ifka intaa ku nooshihiin aan wada ogsoonno kor u qaadna aayaha aasaaskiisa nololeed dugsigii aqoontii iyo kusoo barayay adaabtaas oo ayaan la muuhayn midkii nolol bilaabay ee ardayahay dhameeyey soo ayaan la muuhayn kor u qaadna aayaha aasaaskiisa nololeed abaalkiima gudanee ifka intaan ku noolnahay mid kasta oo aqoontii iyo adaabtii iyo akhlaaqdaba allahay u dhiibay ayaan lu ka soo baxay intaan duni ku noolnahay aan wada ogsoonno kor u qaadna aayaha aasaaskiisa nololeed ilaahay aqoontii iyo cilmigii iyo waxgaradkaba ilaahay aqoontii cilmigii waxgaradkaba mid ilaah u dhiibaa maamulaha ayaan laah intaad ilaahay uumay dumarkay oogadiisa saarayba cilmi iyo waxgarad iyo aqoon iyo garashiyo wanaag bay dheer tahay haweenkaba ilaahay intuu uumuhu u dhameeyo sharafoo inta duni maamulo jirta lama sugna asaageed aqoon bay ku dhaafto cilmigiiyo karaamada maamuluhuna siiyaan intifaacsanaynaa adduunyada ku maraynaa intaan duni ku noolahay ducankuu gingimaya ducankaaga dhiga hooy aakhiro jannada hana sii jiifardowso jannadii ku noolow macallimiin adaabtii iyo cilmi lagu dhameeyaa dhigo oo ku xeel dheer dhan kastaba ayaa leh cilmiyaan la dhaawicin ayaa lala dhex raacaa sida dhayda xoolaha aqoontiiyo garaadkaba way kuu dhameeyeen hadhaafina dharaar soo baxaysiyo dhaladuu ka dhigan yahay dhowrta u dhaga nuglaada dhammaystiweeye macallimiintu الحمد لله الذي جعل سنة نبينا لكتاب الكريم الذي من علينا بفضله الواسع وبأتمام الخيرات والبركات الكثيرة أما بعد رمانتي بوحنة سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحنا فرحبا إن نبغى ما يسترن هل كده إنه وقف سمسو حفلة دي قليل بدل الشدة دكسي هوصل لحق أنا قليل بدل دكسي صار maanta waxaan halkan ka oranayaa kelmad ardayda maanta naga sii dambaysa dugsiga hoose dhexe waxaan leeyahay waxaad maanta nasiib u hesheen inaad sanad iyo sanadaba aad naga sii dambaysaan iskuulkii waxaana idinka doonayaa inaad fursadda ka faa'iidaysataan sidoo kale ardayda maanta halkan nagala qalin bedelanaysa waxaan leeyahay haddaad jaamacad tagtaan dalka ah iyo mid dibadda ahba meel kasta oo aad tagtaanba inaga waxay noo ballan ah inuu ayaalna ahaado fii quluubina intaa ka bacdi halkan waxaan ku soo qaadanayaa beydad yar oo gabaya oo ku saabsan iskuulkan ayaanla primary school kuna baxaysa luuqadda carabiga gabaygani mar wuxuu ammaanayaa iskuulka iyo aqoonta marka labaadna wuxuu ka yahay turjumaan carabida ama maxaan sheegaa aqoonta aanu ka qaadanay iskuulkan ayuu ka yahay turjumaan bismillaah اليوم في الصومال تشرق نورها في مركز فيه العلوم تنال شمس على سطح اللصيدة قد رست لتشيع على شائها الأوعال هو للبصيرة والبصيرة نهجه يدعو لدين الله من قد مالوا وعلى بصيرة الدعوة بمودة تمضي بما قد يقتضيه الحال فتصارع الوراد تقبس دوه حتى تصير كأنها الآمال في الأرض عين ويشيع ديوها ويديره في حكمة الربال يا من يشوب مشرق والمغرب خلف الملاهي قد شفاه ثقال مهلا رويدك ها هنا تبتقي
ها هنا تبتغي أن جئته تجوس تنال وبعلمهم تتفاخر الصومال يا ربي باركهم ويسر دربهم بجهودهم تتحقق الآمال. وبكل عام سوف تأتي دفعة في غبدة تتعاقب الأجيال والمخلصين لدينهم وبلادهم لا يعتري درب الفلاح كلال فيه أساتذة أولى ملوا الدجى نور فأشرقيها بالأعمال يا ربنا أكتب أجرهم وشهودهم فبعون ربي تكسر الأغلال ولديه كل صغيرة وكبيرة وبفضله تصير الأعمال. وصلاة ربي والسلام على الذي نزلت عليه الحشر والأنفال خير العباد محمد خير الورى وصحابة لم تسهم الأثقال يا ربنا أجمعنا بجنات علا برياضها الخضر تحيد الرحال لما أنت موانب السلام يا وحنا آدي آدهم هل علينا يا مامولها يا خديجة محمود جامع ومدة أسبة aqoon teedii ilaahay baray nooga faa'iideysay habka ugu fiican noogu soo gudbisay si daacadnimo leh waana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale macallimiintayda dhamaantiin waxaan leenahay ilaahay jannatul firdawsa ha idinku abaalmariyo wax kale idinku ma abaalgudaynay subxaana wa tacaala noo suuro gelinay madashan quruxda badan saaka noo qabsoonto ilaahay ayaa mahad iyo mudnaanba iskale mar labaad iyo mar saddexaadba marka mahad saddexaad waxaan u naqayaa macallimiinta iyo waalidka mahadda afraadna waxaan u celinayaa ardayda kala duwan ayaan la primary school kuwa dhigatay iyo kuwa nagala baxay iyo kuwa hore uga baxay dhammaan waxaan ku salaamayaa iyo meelaha kala duwan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام أنا كم أرضي كبحذي أيام البريمري سكول وحنا هالكان عاد ياد مهد ونقعنا يا معلمين تكل دوينين وحنا صابرت هير كان السوق عرسي ما هذا اللي بعدنا وحنا علنا يا دمان ما تشرف السوق وناكس نقص قريب كشيء حرفة ده عادي أرضي تيدي ومعلمين تيدي وارين تهابا أنا بقول هذا يا لغة إنجليش تاكل وحنا كتيرنا يا يرى كسابسن وحبرشة وعوان كده importance of education مهمة دايلة وحبرشة يقيمه هيدو ما قف كستوينه أجاده وحبرشة قيمة أولاد هاي هذا نسكبرنا وحلاكين إنه أجن هدف كإنه كجار إنه يقيمة إنه أولاد هاي دبت بلاد وين أجدنا قيمة وحبرشة أنا حكترنا يا وأنا ستم بسم الله. Good morning, first time greet my student and my teacher by saying, peace of Allah be upon you. My best friend is today I would like to share my thoughts on importance of education. An educated person is respected everyone today education in all areas of life. It is important to be well educated if someone aims is to become a doctor, engineer, lawyer, soldier, or held a respectful position. Good education is foundation of better future. Is help to develop oral personal of person. It helps to improve your mind, your body and character. Education helps us take right decision. It is the key to success in a personal and professional life. Education helps us to stay healthy, earn money, agricultural production, promote peace, develop out and many other ways. And would like to mention my speak the great political leader. Education is most powerful weapon which you can use to change the world. We can use the education as weapon to reduce the uses of terrorism. I concluded my speak. Thank you for listening to me. إلى أيام هذا السكال الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.